بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalyaal waa xalqadii toddobaad ee duruustayni ramadaaniga ahaaday. insha allahu tacaala xalqadan waxaan kusoo qaadi doonaa tobanka dambe ee bisha ramadaan fadliga ay leedahay iyo waxyaabaha ilaahay uu dhex dhigay subxaanahu wa tacaala ayaan soo hadal qaadi doonaa. walaalayaal, tobankan dambe ee bisha ramadaan waa waqti aad iyo aad u qaali ah, waa waqti aad iyo aad u fadli badan, waa waqti aad iyo aad in laga faa'iideysto ay muhiim tahay. waa fursad qaaliya oo inaad sii heli doontana aysan ku hubnayn. walidaalika hadiga nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa markii xilligan la soo gaaro inuu juhdi fara badan uu bixiyo oo dadaal uusan bixin bisha inteeda kale, qaybihii hore bisha dadaal uusan bixin inuu markii xilligan la soo gaaro uu bixiyo ayay ahayd hadiga nabiga calayhi salaatu wasalaam. walidaalika xadiidkii imaamu tirmidi oo umuna caaisha laga warinaya ayay waxay leedahay nabiga markay ka sheekeynaysay waxay tiri kaana yajtahidu fi lcasri alawaakhiri maa laa yajtahidu fi gayriha. tobanka dambe ee bisha ramadaan nabigu wuxuu dadaali jiray dadaal uusan dadaalin bisha inteeda kale. sidoo kale xadiis saxiix muslim iyo bukhaariba ku sugan oo caaisha laga wariyay iyo nabigu waxay leedahay umuna caaisha radiallahu canha iyadoo nooga hadlayso qaabka nabigu ahay tobanka dambe bisha ramadaan markii la soo gaaro sidii hadyigiisa iyo dhaqanka nabigu ahaayeen iyadoo ka hadlayso ayay waxay leedahay كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وعيتري نبي وحوها عليه الصلاة والسلام حدي لقارة طبنك الضنباء رمضان إنه قنتك حرانيو ونقصانيو معناها وحي كناية كتهدر كاسو إنه دداليو قفك مركو ربهول أدق إنه قفتو عويست أما ماركت shayga uu xiran yahay aad u dhuuqsado dhabarku ku xirtaa. marka dhabarka ayuu dhuuqsan jiro macnaha juhdi iyo dadaal fara badan oo cibaadada xaggeeda u geli jiray. wa ahya laylahu, habeenkiisana waa nooleynayay oo habeenkii oo dhan ayuu cibaado ku nooleynayay sida salaad inuu dukado kale, in maaragtay quraanka uu akhrinayo kale, dhikriga ilaahay, duca iyo baryo ilaahay uu baryayo. habeenkii oo idil nabigu ma seexan jirin markii la gaaro tobanka dambe, wuu nooleyn jiray. waiqada ahlahu, ahalkiisana waa toosin jiro, ahalkiisa xaasaska iyo caruurta iyana ayagana waa toosin jiro. wuxuu dhihi jiray kaca oo cibaadeysta oo maaragtay salaad iyo duco iyo adkaar iyo quraan intaasba ku gala oo cibaado u toosa ayuu dhihi jiray. saadateed anagana waxaa noogu sugan dayasho nabiga calayhi salaatu wasalaam, maadaama asagu sidaas u dadaalaya asoo ah khayru khalqillaahi ah oo wax dembiya aan lahayn, annagoo dunuub fara badan galnay oo wax badan oo qalada naga dhaceen, inaan aad iyo aad u dadaalno si ilaahay dembiga noogu dhaafo waa muhim. waxyaabaha kaloo muhimka waxaa ka mid a ilaahay maadaama cafis aan ka doonayno inaan annaga dhexdayna iscafinno laftirkeennu. haddaan iscafino ilaahayna waa na cafinaya walaalayaal. marka bishaan iyadoo sidaa u wada barakaysan guud ahaan, gaar ahaan haddana tobankaa dambe sidaas ayay u fadli badan tahay. waxyaabaha bishaan dhexdeeda ku jira xilligan weliba tobankan dambe, waxyaabaha tobankaa dambe ilaahay uu dhex dhigay waxaa ka mid a laylatul qadri, habeenka la yidhaahdo. habeenkaas laylatul qadriga la yiraahdo aad iyo aad u fadli badan ayaa ku jira bishan ramadaan waliba tobankan dambe. saa darteed
حديث أمنا عائشة لقورنا أمنا عائشة وحيلاتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وحيلات النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه طبعا كان دم رمضان واعتكاف جري مسجد كوجلي جري الدنيا ده إيه وحيابها صعدة وكجي سنجري مركز مساجد كوي اعتكاف جري وحونا له جري تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر كالرادية طبعا كان بشهر رمضان صادرت مركب حبين كاس فضلك بدن أيا أصيغنا كجرو طبعا كان دبه وعلى هذا قفك مسلم كان مركب إنه دلالسي إلهي وافجي حبين كاس السقعة. ليلة القدر وحبين آد فضل بدن waxay kamid tahay khasaa'ista ummadan muhammadiyada ilaahay uu ku gaar yeelo oo ilaahay uu siiyay subhanahu wa ta'ala. laylatul qadri khayrun min alf shahr wa hal habeen oo ka khayr badan kun bilood amalkii aad sameey laheeday oo aysan ku jirin laylatul qadri ayaa waxa ka khayr badan halkaas habeen amalka aad sameeyso. marka waxa la rabaa qofku inuu dadaalo si uu u waafaqo habeenkaas oo ilaahay u waafajiyo asagoo amal saalix ku sugan in leeyladii ay waafaqo oo gaaro oo xilligeedii la gaaro. nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaamne waa nagu tirtirsiiyay inaan ka faa'iideysano oo habeenkaas asaga ah aan istaagno oo aan maaragtay cibaado iyo daaco in badan lagu camiro. xadiis Abu Hurayra laga wariyay ayuu nabigu yiri kaleeyhi salaatu wasalaam man qaama laylatal qadri iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. qofkii istaaga habeenkan laylatul qadriga ah asigoo ilaahay dartiis ka tahay asigoo ilaahay ajir uga raba ilaahay dambigiisii hore uu dhaafayaa ayuu nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam xadiiskaas Bukhari iyo Muslim labadaba way soo saarayaan. walaalayaal marka isku soo duube bishan Ramadaan ayadoo aad u fadli badan gaar ahaan 10kan dambe aan ka faa'iideysano aan raadin habeenkaas aad iyo aad loo fadilay oo maaragtay ilaahay uu sheegay inuu kun bilood ka fadli badan yahay. kun bilood wax sahlan ma ahan waa 83 sano iyo dhowr bilood amalkii aad sameey laheed ayaa halka habeenkuugu xasilaya. marka aan dadaalno waxa loo badan yahay waliba habeenada oo awtaarta ama tira dheerka ah oo watarka inay ku jirto sida xadiiska Aisha uu tilmaamayay rasuulku uu yiri kaleeyhi salaatu wasalaam taharru laylatal qadri fil witr من العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر كالرادية حبينة ترديرك طبعا كالضمبي رمضان كجرة. حديث إمام بخاري مسلم الله وصوص صاريان غير كودبا مركا ولا ليال وحن سدر دارمينا إن كفا إذا سنو إن حبينة قالقة إلهي سنة كبر إنه إن مارت أو نوافجي ليلة صعيدة يابا كلو مارت مهم كوحا كميد قفك إنه بديو دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إلهي يوم الله وح عفياتها عفينا وجع شهاي إله عفي دعاء نقفك مسلم كأنه كوع العليا يا صناعة انت أيان مارك اسكبر رجلين. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين